waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis oo aynu daaha kaga rogi doono qodobo ay ka mid yihiin Itoobiya oo si rasmi ugu dhawaaqday aqoonsiga Somaliland. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo tiri anaga siinayna aqoonsiga Somaliland, cid naga joojin kartaana ma jirto. waana qodob ku jira heshiiska ay kala saxeexdeen labada dal. iyo dhinaca kale dowladii fadhiidka ahayd ee Soomaaliya oo waalatay Xasan Sheekh oo durtaba wadamadii Carabta lacag uu ku dagaal galo iyo hub ka dalbaday wadamada Qatar iyo Masar oo durtaba ka soo jawaabay. iyo dhinaca kale mas'uul sare oo u hadlay Mareykanka oo ku tilmaamay dowladda taagta daran ee Xasan Sheekh mid cidla gudaysa intay Somaliland ku daba xiiqayso waxa ha ka qabata buuri gudaheeda kotonka maamul iyo kotonka firqo u fadhida ee wadamada caalamku dhoodhoobayaan. iyo dhinaca kale madaxweyne Biixi oo miyiga Oromada dalxiis ku tagay abagaadhayaal badan ayaa la sheegay halkaasi inay ku soo dhaweeyeen. iyo dhinaca kale wasiirkaahin oo ugu baaqay reer Somaliland 3 week u dabaaldegaan guusha qaranku gaadhay. waxaa kaloo ka soo qaadanaynaa barnaamijka dowladda Soomaaliya ee taagta daran iyo wadamada Carabta ee lacagta iyo hubka la soo cararaya oo loo soo jeediyay in ay caqli ku yara daraan. weli Janice ayay haysataan baa lagu yiri aqoonsi ay ku dhawaaqaan markaas Somaliland oo Itoobiya intaanay markaasi heshiiska si rasmi ah markaa loo gelin oo aqoonsigaasi saxiixin in ay Soomaaliya iyo wadamada Carabta lacagtii hubka la soo yaacay dagaalka soo horboodaya in ay caqli ku daraan oo aqoonsadaan Somaliland baa loo soo jeedinaya, laakiinse ma aqbali doonaan. qodobada iyo qodobo kale ayaynu daaha ka rogaynaa. kusoo dhawaada barnaamijka. waan ku bilowna barnaamijka tan iyo markii ay labada mas'uul ee ugu sareeya wadamada Itoobiya Somaliland ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay kala saxeexdeen isfahamkii heshiiska markaasi labada dal ay ku gaadheen markaa in ay Itoobiyana la siiyo ama laga kireeyo 20 kilomitir oo bada Itoobiyana ay markaasi aqoonsanayso Somaliland. inta badan saxaafadu waxa ay qoraysay waxa Itoobiya faa'iido oo markaa 20 kilomitir oo bada markaa in laga kireeyay. iyo sidoo kale inkastoo markaa la taliyaha arrimaha dibadda ama arrimaha siyaasadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Nicolas Ridwan Hussein uu sheegay in Somaliland sidoo kale share laga siinayo diyaaradda Ethiopian Airlines ay taasi markaasi faa'iido u tahay Somaliland oo masaaka ku dhawaaqay qodobkaasi. haddaba inta badan dadka cadawga Somaliland kuwa ayaa waxa ay sheegayeen lahaayeen Itoobiya ma aqoonsanayso waa been, laakiinse haddaba mas'uul sare oo u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ninka la yiraahdo Misganu Arga oo markaa u waramayay BBC-da laanta Amhariga ayuu wuxuu u xaqiijiyay in ay Itoobiya aqoonsanayso Somaliland una aqoonsanayso dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka caalamka iyo dalalka qaaradda Afrika. waxa uu Mr. Misganu Arga sheegay in ay markaasi taasi ku jirtay heshiiskii isfaham ee ay gaadheen labada mas'uul ee ugu sareeya wadamada Itoobiya iyo Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo markaasi Dr. Abiy Ahmed. waxa uu markaasi haddaba mas'uulkani uu meesha ka saaray wax mugdi ah oo markaasi ay kooxo badan soo galinayeen oo ay lahaayeen Itoobiya wax faa'iiday. waliba ha u badnaato kooxaha faanooda boogta ee Itoobiyada ku kacsan oo dacayado badan iyaguna sameynayay. xagga dhinacan kale Somaliland kooxaha ku kacsan ee huwanta iyo kuwa isirka daaroodka u dagaalamaya iyo dowladda Soomaaliya oo waalatayba Xasan Sheekh Maxamuud xitaa maryihii dhigtay oo moogta meel walba garaacayana waan idin hayayo waan faahfaahinayaa. laakiinse waxa Itoobiya dhinaceeda qolyaha moogta faanooda Amharada ee dacayadaha laftirkooda qorayay, laakiinse mas'uulka sare ayaa sheegay in ay markaa qodobada kala saxeexdeen ay ku jirtay Somaliland la aqoonsanayo sidii uu inoo sheegayba madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shalay galabtii markuu ku dhawaaqayay heshiiska ay labada dal hadda isla fahmeen in ay kala saxeexdaan. haddaba dadka falanqeeya arrimaha geeska u kuur gala waxay sheegayaan in
mas-uulkan sare wasaaradda arrimaha dibadda u hadlay ee Misgaano Arga la yiraahdo sida oo kale uu ka jawaabayay kadib markii ay Soomaaliya ay markaasi ku dhawaaqday in ergagii ama safiirkii u joogay ay kala soo baxday Addis Ababa oo markaa xiriirkii ay u jareen ayuu markaa tan hadda uu cadaadis ku sii saaraya leeyahay waaban aqoonsanaynaa cid naga joojin kartaana ma jirto sidaasana ku heshiinay kaalay wax naga qaaday kale ka dhigan tahay waayo Somaliland markeedii horeba wadan madax bannaan oo ku biiray Soomaaliya dibnu madaxbannaanidiisii buu la soo noqday taariikhda Itoobiya way haysaa intaas oo sanadood ayay jaarhaayeen marka wax muhimil ama moogtay in sarcaad lagu sameyn karo maaha dalka Somaliland sadarteed Itoobiya way ka badheeraysaa takale laba baahiyood baa la isweydaarsanaya caalamka interest baa la isweydaarsadaa cidna cid abaal uma gasho cidna cid moogtahay naf jeclaysi iyo xaasib ma jirto waxa ay dawladuhu ku shaqeeyaan waa interest iyo dane marka danaha Itoobiya oo inay bad hesho intaas oo qarni ay u waalanaysay iyo Somaliland oo markaas dhowr iyo 3 sanadood iyaduna aqoonsi markaa raadinaysay laba baahiyood baa isweydaarsanayaan marka cid joojin kartaa ma jirto waxaan imika u gudbayaa dawladda Soomaaliya mariyay bay dhigatay oo moogtay hadda waa halkii ugu sareysay bay taagan yihiin shalay ayuunba moogtay ilaa haddaba haatay gacanta ayay ku hayaan wadamada reer galbeedku mushaharaadka dawladda reer galbeedka bixiya cashuur ma ururiyaan hubkii markaa cunaqabateyntii saarneena imika ba laga qaaday haddaba ninkii Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu garaacay dirtaba oo soo wacay baa yidhi ama isaga garaacay ama wala soo wacay labadaba way jiraan waa dawladda moogtahay dagaalada horisa waa qadar ayaa markii amiirkoodu soo garaacay waxay sheegeen lacag badan inay markaa bixinayaan si dhulka iyo midnimada Soomaaliya loo ilaaliyo bay yiraahdeen Masar oo iyaduna markaa Itoobiya ay ognay webiga isku hayaan ayaa iyaduna soo garaacay hub wixii Soomaaliya ay dub baahantay anaga bixinayna bay yiraahdeen bal dawladaha carabtu caqligu calooshu kaga jira un baan maqli jiray moogta waa dhaba caqli ay ku darayaan ma jirto bal labadan dal ee Somaliland iyo Soomaaliya isku hoos maran kala furta oo aqoonsigeed hal la siiyo oo laba dal awood leh oo ku soo biiray shacabka carabta noqonayaan sida loo kala farsameeyo ma oranayaan waa iska cabiid caqligu calooshu kaga jireen wiligeeba maqli jiray carabta moogta tiiba run noqotay imika hub iyo dagaal bay horinayaan wadamadii Qatar iyo Masar labadu waxay leeyihiin Xasan oo anaga ku siinayna hubka iyo lacagta ku dagaalamay toos u gal Hargeysa bay ku leeyihiin oo markaa way soo hubaynayaanba marka caqliguna waa ka moogta carabta wax lagu abtirsaday wax la sheegta toonayna bari hore ayaa moogta dadka caqliga leh ka talinayaan durtaba waxay soo ururinayaan leeyihiin waa tabtii Saddam Hussein hubkii uu siyaad bar ku leeynayay dadka isaaqa sumbu soo dhiibay Saddam Hussein oo laha tirtir oo moogtahay xasuuq u geysanay isagoo ka dhaadhiciyay in dadka isaaqa Yahuudiyiin واتيو كلهم كنا قراعي كمان كاسي وحنا حسن الشيخ محمد شاقي إن قاعد راعينا مركا يوتيوب راعي سوي هلاد ويبث يرسو تاسو تتبكر دعي بوقت marka adu si kasta ha ahaatee waxa hadda la sheegayaa in qadar ay lacago bilyanis ama malaayiin de ballan qaaday tii kale Masarna hub soo ballan qaaday xasanna waxa uu ku dhawaaqay sidoo wargeyska The Guardian qorayo Ingiriiska ka soo baxa dagaal uu la galay markaasi oo yiri Somaliland iyo Itoobiya wala galayayo waa dagaalamaya sidaasay qoraysa warbaahintu haddaba si kasta ha ahaatee laakiin dadka moogta arrimaha geeska ku galay waxa sheegayaan in iska faataa baqon tahay moogtay iyo hanjabaad sidii DB Wall imaaraadka markii ay Soomaaliya la saxaxanaysay saasoo moogtay ra'iisul wasaarihi Soomaaliya bariga joogay khayr iyo farmaajo caabaad ku dhamaaday afar cisho markay yara cararaan bal yiri iska aamusi doonaano waa gabgabun dhinaca kale kaaliyihii hore ee xoogaya arrimaha dibadda Mareykanka ahaana safiirkii hore Addis Ababa u fadhiyay Mareykanka Tibor Nagai ayaa isaguna wuxuu si kulul ula hadlay dawladda taagta daran ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku sheegay intay Soomaaliland ku xiiqsantahay ay dagaal la abaabulayaan in ay markaasi balaarimo xasishaan oo kontonkan group ay kala fadhiyaan iyo moogta ku mashquulaan dawladda bal inuu astaamo dawladeed yeeshaan oo marka ayagu caga ku istaagaan ay hawlahooda ku mashquulaan ayuu soo jeediyay dhinaca kale waxa iyadana jirta wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Kaahin oo marka caawa la hadlayay kumanaan qof oo markaasi reer Somaliland ayuu wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay wasiirku oo ay u sheegay dadka reer Somaliland in ay 3 week ee soo socda ay habeen iyo maalinba
ay u taagnaadaan sidii qarannimada Somaliland ay u muujin lahaayeen siday uga go'an tahay iyagoo markaa laga jawaabayo koox cadawga Somaliland soo abaabuleen oo 4 TV oo yar wareysteen oo markaa shilimaad ay soo siiyeen kooxaade ina waxa jirta huwanta gudaha moogta oo ma iltisaam ahaadaan ama qaar kale oo lacag ka qaata halka laga soo biiliya ahaadaan kuwaas 4 qof soo dhaqaajiyay maanta yiri heshiiskaas aanu diidanay waxyaabo noocaas haddaba waxa ka jawaabay caawa kumanaan reer Somaliland Hargeysa isku soo baxay caasimadda Hargeysa oo istiriidiyada dhan qaadi waayeen kumanaan ka qof buu hadlayay wasiirkaahin waxaana uu sheegay markaas si ballaaran in loo soo dhaweeyo sidoo kale wafdiga madaxweynaha oo iman doona maalinta Khamiista dowladii xamar waxa ka soo baxay وعملها الشاديين يدمنها الشاديين معناها دينها وحوايه ترى المدينة التي تيعي دولة المدينة التي تيعي شركاتنا التي تيعي عاود دخل شغلتين يردي ما هو بلدي تبكيدي ما تبكيدي تلسي زمانتي بلدي راوعي لغا حرية صورتي وعلى المكرمة الدفاعي قرنكا وعلى المكرمة بلوتو إلى اسمه انتصام وعلى الرباز خميسة وفي إيمان أيين المكتبين صوبة نام بحرام بل يرى لاي وديتني يدون دولتني انت تيتن وعلى الرباز اسمه انتصام والله إذا فعلا